horta marka hore aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukunka cadaalad darrada baahsana ee ku dhacay Cabdimaalik Muuse Coldoon. Cabdimaalik waxaa loo haystay 2 eedood. labadaas eedood mid 2 qodob bay ahayd midna 1 qodob bay ahayd. mid waxay ahayd waxa iskuulka abaarsa ku haysta midna waxay ahayd qaranka dhibanaa oo madaxweynaha wax ka sheegtay. haddii aan kala qaado iskuulka abaarso marka laga yimaado dadka suuqa laga abaabulay iskuulka abaarso tootali wuxuu istaagay dhibana kamihii dacwadda xaashida eedda wada arki kartaan meel allaale meel kaga taalo iskuulka abaarsa dhibana ma jirto dawladdu iyadoo ku raad gadanaysa oo eedaha kale u haysato Cabdimaalik ku qildiyaysa waxa la raadiyay qaab loogu soo diray iskuulka abaarso waxa loo yeeray oo xaashida eedda lagu soo diray maamulkiisii oo magacyadii institution isku waxa la yiraahdaa waxay leeyihiin shakhsiyad qaanuuniya legal personality ma ahayn qof la soo qoro waa in la yiraahdo iskuulka abaarsa dhibana tii way dhacwada iskuulku u diiday waxa markaa la sameeyay in magacyadii dadkii iskuulka ka madaxda ahaa la soo qoro magacyada nimankii la soo qoray Jimmy baa kamid ahaa nimankaasina totally iyaguna way diideen in maxkamadda yimaadaan hal inana lagu sheegay isaguna inuu xisaabiyaha Soomaaliya ayaa lagu soo daray isagana isna uu diiday dadkii noocaha iskuulka markii la waayay in isaga abaarsahan ku dacwado markii madaxdiisii lagu soo daray xaashida eedda iyaguna ay diideen intii dacwaddu socotay waxa xafiiska xeeraantu abaabulay oo suuqa la kiciyay dad waalidiin oo la leeyahay dadkana dhibanayaala dadkaas xaashida eedda meel laba kaga ma xusna fadhigii saddexaad baa iyagoo maragyo lagu soo qoran dhibanayaal ahayn xaashidooda eedda maxkamadda la keenay maalinta la keenay sharciyan iyo qaanuuniyan maxkamaddu xaq uma ilahayn dad aan ahayn dadkii dhibanayaasha iskuulka isaga hedinu dacwoodo amba maamul ahaan ku dacwoodo dad suuqa laga ururiyay in la yiraahdo dhibanayaal baatiin ceeb bay sharciyan tahay halka markay marayso dadka laftarkooda markaan su'aalihii weydiinay waxay noqotay adoo hebelo ilmahaaga miyaa wax lagu sameeyay waa maya iskuulkan si guud ugu hadlay iskuulka uma hadli kartay iskuulku maamul buu leeyahay dariiq loo maree miyaad u hadlaysaa waxay ka dhigan tahay qof shicib oo yiraahdo waxa madaxtooyada ayaan ka hadlayaan ana madaxtooyada metelaya waxaana fayeenkii hayn madaxweyne hayn agaasimi madaxtooyada hayna suuqa iska joogo yiraahda ana u hadlay madaxtooyadii oo kale ka dhigan tahay halka marka ay marayso waa la dhageystay arintaas waxaanu cadeynaa Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan ahayn ilanka saxafiga koobar baa dalka yimi waxaan ahayn oo uu sheegay iyo su'aal uu geliyay ardayda qaar kamid oo uu ku soo dul qoray maxay u jeedaan carabka waxaan ahayn inaanu Cabdimaalik Muuse Coldoon marka taa laga yimaado dacwadaas horta dhinaca abaarso dhibana la'aan weeye horana ay u hayd in makana ay u tahay iskuul dacwaniya ma jiro iskuul maamulkiisu yimi ma jiro taas waa inta waxa ay noqotay muxuuha eedda labaad oo ah taliska Cabdimaalik wuxuu sheegay oo hadaladiis kamid ahaa taliskana wuxuu hayaa tubti talisidii hoogay arintaas sharciyan dastuurka qof kasta oo muwaadin oo ogol inuu ra'yigiisa cabiro haddii ay noqoto lama hadli karo macnaheedu waxa weey dastuurkii wala laalay waxaanu ka qareen ahaan leenahay war xurriyadda aasaasiga ee qofka muwaadinka xurriyadda hadalka ugu muhiimsan dastuurku intaas oo jeer oo aanu ka hadal waxyaabaha kale ilaa xeerarka 153 xeerka dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu oranayaa xeerarkii dawladda siyaad barre waxa laga dhaqmayaa wixii aan ka hor iman xuquuqaha aasaasiga oo ugu horeyso xurriyadda hadalka xilliga dastuurka la dejinay waxa la sii garanayay inuu iman karo madaxweyne dadka ku qabsan kara xurriyadka noocaas aasaasiga taasi iyadoo laga duulayo ayaa dastuurka la adkeeyo tiraba 5 meelood wax ka badan ayaa xurriyadda qowlku kaga soo aray dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka oo la cabriyana wixii dawladii hore ay ku dumeen aad baanu taa uga xunnahay haddii aan iskuulka abaarso ku noqdo waxa culayska keenay iskuulka abaarso in xukunka amba aan u arkaynaa in culayska keenay waxay tahay xafiiska xeeraalinta iyo cid kasta oo daneynayso arrimo siyaasadeed kale intay dacwaddu socotay waxay abaabushay dad waalidiina oo anaga oo qareenaa xataa maxkamadda horteeda lagu qabsanayay tii waa lagu kalsoonaan waayay waad arkaysaan xalay toole media dacwaddii maanta kale lagu dhawaaqayo si loo sii hordego ayaa haddana intii in leeginta la soo ururiyay la yiri media ka hadla taas waxaan leenahay barasharka garsoorka laga daayo inta dacwaddu socotay waxaad arkaysaan oo dadka maragyada cadeynayeen halka abaabulka u horeysay ka email la isku keenay in ahayd madaxtooyada waxaanu leenahay madaxtooyada ugu baaqaynaa dastuurka qof kasta oo muwaadin xorriyatul qowl buu siiyay waxaanu leenahay laga daayo madax banaanida garsoorka xukuumaddu ha ka deyso faragelinta ay ku hayso ugu horeyn madax banaanida garsoorka
qof kasta oo muwaadinana dastuurka u ballan qaaday oo u damaanad qaaday xorriyatul qowlka maanta maamulka gacanta ku haya jamhuuriyadda Soomaaliya amba xukuumadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka deyso ummadda cadaadiska qofkii koowaad maaha Cabdimaalik bigeeya loogu xiray waxaa jira Cabdiraxmaan Abees oo asna inta xidhnaa waxaa jira maanta Cabdimaalik Muuse Coldoon waad arkaysaa sumcad darrtii ugu weyneed weey markaad aragto joornaalada dunida amba hay'adaha xuquuqul insaanku waxay qorayaan inta maanta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi talada haysay dadkii ugu badnaa baa la xiray arrintaas sumcadda Soomaaliland bay hoos u dhigaysaa meeqaamka Soomaaliland bay hoos u dhigaysaa inteeda qof kasta xuquuqul insaan ka shaqeeya maalin kasta intaasoo message ayaa u soo dhacaya oo la weydiinaya arrimaha xuquuqul insaanka Soomaaliland oo aad arkayso sumcaddii Soomaaliland halka awal hore ka ahayd goob lagu xasuusto dimuqraadiyadda in maanta dunidu waxa kaliya prefer garanaysa ay ku soo weydiinaysaa inay tahay dad xidhan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka deyso dadka caburinta inay dadka iyo xuquuqaha dastuurku siiyay ay dadka u damaanad qaado Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maanta uu xukunkii ku dhawaaqay garsoore lagu xukumay 3 sano iyo badh in dacwadda aanu muxuu ahaa ka rafcaan qaadano horta waa qodobka labaad waxaa jira muxuu ahaa mas'alooyin fara badan oo madmadow leh oo ku jiray muxuu ahaa habkii uu xukunka u soo saaray garsooruhu taasoo muxuu ahaa maxkamadda rafcaanka iyo meelsha kale ay khusayso aan hordhigi doono waxaa jirta in iyadoo arrimahan Muuse Cabdimaalik lagu haysto lamida lagu haystay muxuu ahaa abwaankii muxuu ahaa in Abees in garsooruhu ilaa xorriyadiisii hadalka ee dastuuriga ahayd ayuu isticmaalayay marka tan mid la mid un bay ahayd marka waxaad aragtaan in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay kiisaska isku midka ah oo hab kala duwan looga gurnaqayo kuna looga soo saarayo taasi marka waxa weeye wax aan ku habooneyn muxuu ahaa nidaamka muxuu ahaa garsoor cadaalad ku dhisan iyo hufnaanta muxuu ahaa xuquuqaha aasaasiga ah iyo dhaqangelinta dastuurka waa arinta aad baan uga xunnahay aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiin waan idinka mahad celinaynaa waqtigiina iyo maaragtay garab istaaga u muujiseen ninkaas xufiga ee walaalkiina horta marka hore aad baan uga xunnahay maadaama aan qaranadii difaaca Cabdimaalik xukunka maanta ay maxkamadda ku riday anigu laba dhinac baan ka eegayaa inta kale qaran Jamaal baa ku dari doona marka koowaad waxaan aad iyo aad horta arrintan waxay darin inuu filanay in xukun sidan oo kala dhacayo waxay darin inuu filanay marka hal dhinac laga eego oo ah qaabka Cabdimaalik loo xiray waayo qof xarigiisu xaraan ah oo sharci darro lagu soo xiray qaabka cadeymaha maxkamadda lagu helay sharci darro ah ayana lagu hor keenay xilligii sharcigu dhigayay xilli ka dambeeyay la hor keenay taasna sharci darro ahayd waxa lagu haystaa anay ahayd aragtidiisa iyo waxaan dambi ahayn sharci darro ahayd waanu iska arkayna mar walba natiijada ka soo baxaysaana inay tahay wax sharci darro oo hore Soomaalidu tiri hal xaaraan aniga xalaal ma dhasho taas waa arrinta labaad ee muhiimka ah in dadku fahmaan waxa weeye Cabdimaalik Coldoon waxyaabo lagu xukumay waxa kamid ah inuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku tilmaamay taliska Muuse Biixi waxa walaacle sanad gudihii in 3 ilaa 4 qof loo xukumo magaca madaxweynaha si kale isticmaasheen Maxamed Kayse Bigeeye ayaa ugu horeeyay oo 2018 June May lagu xukumay waxa tir madaxweynuhu waa loka annaga iyo Jamaal baa loo yaray waxa ku xigay wargeyskii Foore oo anagu qaran u ahay oo lagu haystay madaxweynaha waxa tirada Biixi maanta Cabdimaalik baa ku xigay oo leeyahay madaxweynaha waxaad ku tilmaantay taliska Muuse taasina waa arrin kale warwarkeega leh iyo walaaceega taasina ay sababayso in madaxweynaha waxa loo isticmaalay in lagu iraahdo ay tahay mid la jaangoynayo ay jaangoynayso xukuumadda loo oranay madaxweynaha qaabkan anagu jecelnay ugu yeera laakiin qaabka ka doon hadda ugu yeedhan xabsigeed ku galaysa ayuu dalkuna dimuqraadi yahay isla markaana sharci darro tahay arrinta kale cajiibka waxay tahay dacwadaan dhibana lahayn oo cid soo askatay Cabdimaalik aan jirin si mid madow in loogu xukumo aad baan uga xumahay horta garsooraha xukunka soo saaray waanu dareemeynay culays fara badan baa saarnaa waxaan arkaynay inaanay madax banaan jirin iyo go'aan qaadasho isaga go'aankani uu yahay mid ka yimid rabitaankiisa inuu ku xukumo Coldoon muuqaalkiisa garsooraha harkiisa psychological inuu ahaa nin waxaan uu hayo aan raalli ka ahayn ama waxaan ummadda u sheegay marka mar walba uu ka xunaay xukunka Cabdimaalik ku dhacay وسيدنا maalintii sheegayna ma aha quraan Cabdimaalik maanta xiran yahay ama xukuman yahay laakiin dastuurkii Soomaaliland iyo shuruucii oo dhan baa xiran oo xukuman waxaan soo jeedinay in garsoorka madaxbannaanidiisa xukuumaddu faraha uga qaado oo garsoorka madaxbannaanidiisa loo daayo way soo Maxamuud sheegay garsoorahan isla shalay markuu ku dhawaaqay xukunka Cabdiraxmaan Abees wuxuu yiri Cabdiraxmaan Abees wuxuu dabaqay sharciga oo dastuurka uu ogolaan aragtiisa cabiro
coldoonna wuxuu yidhi maanta waxaad gashay waa dembi marka waa siduu qaranku idiin sheegayey waa laba dhacdo oo si labada jeer laba qaabo kala duwan loogu isticmaalay dastuurkii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidaad wax ka warqabtaan maxkamadda maanta waxaa xukun 3 sano iyo 6 bilood ah lagu xukumay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soldier. run ahaantii arrinkaas iyo xukunka ku dhacay aad ayaan uga xunnahay walidalik horey saad uga warqabtaanba maraaxilkii kala duwanaa waa Cabdimaalik intii ay maxkamaddu socotay uu soo maray looyaradii iyo qareenadii u doodayay waxay ka socdeen dalka Soldier iyadoo mas'uuliyadda Soldier loo aasaasay ay tahay inay ilaaliso suxufi kasta oo ka howlgala Soomaaliland waajibkeygana ay tahay sidaasi daraadeed waxa aanu mar walba goobjoog uga ahayn oo aanu ku dhiiranayn oo aanu barbar taagnayn wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon xukunka maanta ku dhacayna waxa aanu cadeynaynaa inaanu aad uga xunnahay ka harimayno ka daalimayno ka joogsan mayno wadiiqo kasta iyo sifo kasta oo Cabdimaalik Muuse Coldoon uu xorriyadiisa dib ugu helayo. Cabdimaalik waa wariye ka tirsan wariyaasha Soomaaliland Soldier way u doodi doontaa haddii Cabdimaalik tahay haddii ay tahay suxufiyiin kasta oo Soomaaliland ka howlgala waajibna saaran weeyaan. waxaan codsanaynaa in loo dhibirsamaado waxaan codsanaynaa in la ilaaliyo waxaan codsanaynaa in mar kastaba xaqooda iyo xuquuqdooda la siiyo Cabdimaalik iyo qeyrkiis. waad ka warqabtaan warbaahintu dhibaatooyin iyo maraaxilaad kala duwan oo adag ayay Soomaaliland dhexdeeda kala kulmaan. xorriyatul qowlka dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u bineeyay xaqna u siiyay. waxaan leenahay annagu haddaanu Soldier nahay waa ku dhiiranaynaa mar walbaba in aanu xaqa ku ilaalino wariyaha. waa dareensannahay inuu wariyuhu gaf la gadi karo waa dareensannahay inay wax baalmari karaan waa dareensannahay in laga taban karo. waxaanse leenahay tabasho kastoo timaada iyo tigaad kastoo timaada waa in lagu hagaa oo lagu ilaaliyaa wadiiqada saxda ah. wax kale iskuma hayno xukuumadda iyo qeyrkeed iyo cid kastoo sharciga ilaalinaysa waxaan isku haynaa waa sharci sharciguna wuxuu dhigayaa fa'aati kulli dii xaqin xaqah war suxufigana xaq hala siiyo suxufigana cid kasta oo uu mas'uul ka yahay xaqiisa siiyo. waxa ku soo koobaya hadalkayga Cabdimaalik waa wariye naga tirsan waanu ka dhiidiyeynaa wada kasta oo wanaagsan oo maanta xorriyadiisa uu ku helayana waa u mareynaa haddii aanu Soldier nahay. waxaananu leenahay Cabdimaalik waa ku maqannahay waa ku joognaa garabkaaga ayaanu taagannahay. runtii gudoomiye ku-xigeenka Soldier Yaxye Sheekh Ismaaciil baa dhameeyay hadal faahfaahsan oo ka tagay ma arkayo laakiin runtii sayl la wada socono maanta go'aanka ka soo baxay maxkamadda runtii 3 sano iyo 6 bilood oo mid aad runtii aanu soo sheegay Yaxye runtii qof kasta xorriyadiisa aad buu jecel yahay anagoo la dareemayna Cabdimaalik xukunka ku dhacay marka inta laga yimaado guud ahaan Soldier xafiiska legal aid office-ka runtii looyarada ka shaqeynaya aad bay u dadaaleen iyo looyarada kale sida madax banaanba u galay oo runtii iyagu intii dacwaddu socotayba si fiican oo meeqaam sare leh uga qayb qaadanayeen inay xorriyadiisa dib u soo celiyaan hase ahaatee go'aankaas runtii aan farxad gelin waxa isku jiray laba qaybood qayb waxay ahayd dacwad ay ka soo dacwoodeen Abaarso school iyo mid ahayd runtii dacayad madaxda qaranka ka dhan ah walow aanay faahfaahsanayn sida uu go'aankan 3 sano iyo 6 biloodii uu u kala leeyahay waayo mid waa defamation weeyaan midna waa false news propagation ama propaganda iyo fidinta wararka been abuurka. marka runtii waxaan anagu dareensanahay halka mid ee Soldier ku adag tahay waxa weeyaan dhammaan suxufiyiinta iyo hay'adaha warbaahintu waxay xaq u leeyihiin wixii dastuurku jireeyay ee ah inay aragtidooda ku cabirtaan sifaha sharciga oo runtii mas'uul baad cayday mas'uul marka runtii la sheegayo waxa qurux badan in nidaamka sharciga iyo qofkan la caayay iyo qofkan wax laga sheegaya ay runtii constitution-ka ay la jaan qaadayso waayo xorriyadda warbaahinta dastuurku siduu sheegayo qofku runtii wariyihii wuxuu xaq u leeyahay article 32 in uu xorriyadiisa
cabirto sifa sharciga waafaqsan oo cabirto waxaannu runtii ka xunnahay in cabdimaalik kun maahe dhammaan wariyayaashii kale ee la xidhay sanadka 2019 oo ahayd tiro ka badan 16 wariye iyo hay'ado warbaahineed oo kale albaabada loo laabay ay runtii Soomaaliland dhaawacaysa sawirkeeda dimuqraadi ahaan iyo wadan runtii xora oo warbaahintu ay xor ahayd saalaasligeed waxaan ku soo koobaynaa runtii aad baan uga xunnahay kulli nidaamyada lagu sii daayay ama xorriyadda loo helaana qaar formal iyo qaar informal way leeyihiin way isku dayi doonaa wixii awoodayda inaan bismillaahi raxmaani raxiim saaga waxaan joognay maxkamadda gobolka waxa ahayd maalintii u dambeysay ee lagu dhawaaqayo xukunka ninka la yiraahdo saxafiga Coldoon oo aan ka soo qayb galay aniga sidii la ii xidhay ee aad ii weydeen ee aanan dib ii arag oo saarka media iga horeysa waxaan qabaa laba xukun ayaa ninkaasi la isku hoosgeliyay mid ay dawladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen saan xogta ku hayo inaanay ninkaa wax dacwado haysan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood waxaan u arkaa xadhigaasi cadaalad darro xaq darro in Coldoon la xidho iyo in Cabdiraxmaan Abees la sii daayo cadaaladdu kuma jirtay ee dalka wuxuu u baahan yahay cadaalad baahsan oo cid walbaaba in hesheetay haddii ay isleedihiin Cabdiraxmaanna waa la sii daayey Coldoonna waa la xidhay anigani waa la sii daystay layma sii daynin waxaa la sii daystay in boorama liigu dilo oo ujeeddo gaar ah oo siyaasiya laga sameeyo taasi waa taa Coldoonna insha Allah waxaan u baryaynaa in cadaaladdiisa u soo celiyo looyaradiisuna ay u doodaan raacfaanna u helo taasi waa ta kale aan ku darayaa waxa weeyaan arrinka ceel afweyn ka dhacay ee dadka walaalaha ah ee isdilay aanu doonayno inaan barodiiq ugu dirno iyagana aanu leenahay war ilaahay ka yaaba cidda waxaan abaabulaysa ee ka dambaysa cidda doonta ha ahaateena in ilaahay ummadda dad ka qabto anintaas kaga bax Cabdiraxmaan waxaad sheegtay inaad tidhi cid baa doonaysay inay disho waayo ciddaasi walaal ciddaasi waa ciddii sii daysay idinkaa wariyaala idinku baadha shirkii kulmiyaad oo dhex jooga iyadoo dadkii kuu dooday ee kuu dagaalamay inta badan oo miidiyuhuna ka mid ahaa ay ku hadleen mar qura waxaa lagu baraarugaaday oo dhex fadhiya oo dhex taagan shirkii kulmiye sidee lagu dilay adaaba shirkii qayb ka ahaaye walaal waxa weeyaan sida la ii dilay sheegaya waxa weeyaan shirka anigu umaan tagin inaan shir tago ee madaxweynaha qarankaad u tagaysaa baa laygu yidhi laakiin meesha waxaa ka jirtay khiyaamo kale iyo siyaabo kale meel kale lagu kulmaa jirin maxaad iga shirka ku geeyay boorama walaal waxa weeyaan madaxweynuhu hadduu kugu yeedho muhiimaddu maaha halka aad ku aragtee waa inaad madaxweynahaaga ugu tagtaa halka uu kugu yeedhade waayo Cabdiraxmaan waxaan doonaa su'aal ku weydiiyo waxaa sheegtay in adiga lagu sii daayay Cabdiraxmaan Cabdimaalik Muuse Coldoonna la sii dayn la xukumay waxa tar sharciga loo sinaado adigu waxaad aaminsantay sii dayntaana sharci darrahayd ma anigu waxaan aaminsanahay walaal in sii daynteedu sharci ahayd waxaan aaminsanahay inaan qof dulmi galay aan ahaa sidaa dulmi lagu sameeyay sidaa uu Cabdimaalik u dhibanaa ayuuman aniguna u dhibanaa laakiin in la sii daayo iyo ilaa la soo xidho midna deemaan awoodin anigu sidee maxay tahay dilkii lagu qorsheeyay ka badbaadiyay dilka waa af Soomaaliga waa si khaldan baad u fasiratay dilkan ka hadlaya waa sumcad dil iyo dadka adigoo miidhana iyo ummadda kale liiga dilo xukumay Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waa go'aan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqay 15 Juun 2019 markii uu furayay imtixaanada qaranka ee uu yidhi siyaasiyiinta xidhan iyo suxufiyiinta xidhani waa dambiilayaal garsoorku maanta wuxuu shaambad weyn ku dhuftay hadalkii madaxweynaha waxa kale oo xalay toole aynu ka arkaynay niman dhibanayaal sheeganaya saxaafadda oo ku baaqaya in loo xukumo oo loo dhaadhiciyo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon yacni in go'aanada sharciga laga sii hordhacaa gaf ayay tahay garsoorka Soomaaliland ma madax bannaana waad arkayseen oo waxa xidhnaayuu sii dayn kari waayey xildhibaan huwan xasaanad qaran waxaan ku baaqaynaa free garsoorka Soomaaliland iyagii baa dhibanayaal ah oo maxaabiis ah oo loo yeedhinayaa Cabdimaalik waxa la soo xidhay isagoo waaran sharciya aan loo haynin gobolkiisii baa laga soo qafaashay maxkamadda waxa horteeda laga qirtay in ay sharci darro tahay dhammaan eedaha loo jeedinayo waa la difaacay go'aankaasi wuxuu godmadow ku ridayaa cadaaladda wuxuu muujinayaa in golaha garsoorku uu yahay la haystayaal aan si madax bannaan go'aan xaq ah u soo saari karin